markii dambena magacii un baa hirgalay oo magac uniga noqday dad badan bay weydiiyeen niyo maaweel waa maxayna weligay maan maqlan inta badan dee bulshadeenu uma diyaarsana inay ka faa'iideystaan qaybta internetka uma arkaanba in wax laga samayn karayo inan Soomaaliyeed inaan guursado carruur dhasho that's my dream ilaahayna uu gaarsiinaya insha Allah ta'ala hablaha Soomaaliyeed waa big love baadigu sidii koobkii Chelsea ku qaaday de habeenkii ma naasay asxaabtay dadkii daawanayay ma hayna habeenkaas dadkii dhageysanayaan dadna chance waxa weeyaan inay garoonkii joogaan oo daawadaan laakiin maalmaha ka wada teamka oo soo taageerada Brian social media waxa ku jirtay sheeka Morocco haweenka Morocco kan kal rag Soomaalidu xaga tagayaan Morocco ku soo guursadeen habla السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتين هاد بدي سلام صاحب السود وهذا ملك استودع نقطع ونسان. هالكن هو برسيدي يوتيوب كعلى شيء. أو برامج كنا نوحى برامج عويسة أو أنه كل قادم طانو ميت كم بدا يوتيوب ريسكا وعنصن لوجون الشعرية. مركا نكاسنا وعبد السمد ماويل كسودو صاحب. ما شاء الله. كسودو صاحب أديات بعض بحسنت هاي وحنكوري سودوين هذا. sidoo kale ma sha Allah channel-kaaga cusub ee aad yeegleelshayna insha Allah ta'ala waxaan leenahay meel fiican buu insha Allah gaaraya waan dhawahay diyaarna waan ahay waxaad weydiinaysaa waa ma santahay saaxiib sida dhaweyntaadana kaga mahadcelinaya Cabdi Samed oo kuma horteen in yar taageerayaashaadii kuwiga waa horta Cabdi Samed Maxamed Maawel weeye magaca Maawel waa naanays horta waa nickname Allah yarxam awogii baa la oran jiray marka family-ga uu isaga ka bixiyay markii dambena magacii un baa hirgalay oo magac uniga noqday dad badan bay weydiiyeen niyo maaweel waa maxayna weligay maan maqlan maaweel like waxa weeyaan waa maaweelin carruurta maaragtay marka qofku maaweeliyo ama uu ciyaarsiiyo something like that dadka carruurta waaweyn jecel ayaa dhahaa uu maaweelinaya qofkaas carruurta marka maaweel waa magac sida ma ogtahay awogay ugu baxay عبسن حندونينا كلو كويديو سؤالش نقول رئيسي كله دم ضد بنبع استعمال برابل شدة السوشيال ميديا كله دوين أما يوتيوب كمان إنستغرام رياضة بنبع استعماله كوبدن حجاري إنه كصابيران أو أي كصابيران طلحان محاجو سوشيال لايد سيدو كلام عقبضة محا فايدة والله هرت السوشيال ميديا نيجاتيف يا بوزيتيف بقولي هاي marka qof kasta dhinacu ka soo galay ku xiran tahay faa'iido uu leeyahay lacag waa ka sameynaa ma sha Allah yani wuxuu leeyahay deecaanimo dad badan baa ku baranaya sidaadii hore ma noqonaysid yani dad badan baa arkaysaa ku salaamaya ku ixtiraamaya waxayna ku xiran tahay waxaad soo gudbinaysaa inay yihiin wax bulshada ku xiran wax muhiim u ah markasta waxa wanaagsan horta uu qofku wuxuu soo gudbinayo inay noqdaan wax interestina xiisana leh entertainment social media waa iska entertainment laakiin inta badan Soomaalideenu waxay ku badan yihiin oo aad loo daawada badanka waxyaabaha ma garanaysaa yani comedy waxyaabaha exactly dadkeen waxay ku badan inta badan entertainment kooda waxay badan yihiin like creativity gooda dadkeena yar dadkeena aad wax yar creativity gooda oo yani qofkii wax ma abuuro wax la yimaado badanka dadkeenu yani social media sidii loo baahnaa uma isticmaalaan dad waxa jira badan oo caana lacag sameeya ninka basabiis la dhaho kale oo YouTube-ka waa qofka ugu caansan ma sha Allah si faas ayuu social media ku socdaa lacag aad u far badan ka sameeya waana qayb dhaqaalaha kamid ah waa income ku soo galaya qofka halku maanta shaqo ka raadsan lahaa markuu dhalinyar yahay ama uu jaacad dhameeyo ama uu ma garanaysaa oo de marba dhinac u bixi lahaa media lacagta ku jirta iyo social media lacagta ku jirta waa lacag aad u far badan hadii aad fikirto aad tiraado wax sabee dadkana wax soo gudbi waa chance horta iyada maxay leedahay xagga kale marka laga eego caqabadaha iyo waxyaabaha uu leeyahay xagga marka wallahi horta caqabado yani bilowgiisa oo kale caqabado badan buu leeyahay sidoo kale anigu markaan YouTube ka bilaabay fitness baan bilaabay jimicsi يعني waxaas la haday dadka yani bal wax faa'iido leh horta u bilow intaanad ma garanaysaa de bahar platform-ka waan kor u kicin jimicsi baan bilaabay toyo diet iyo waxyaabahan sameyn jiray aad loo ma daawan jirin dadku aad uma interested gareyn jirin yani barnaamijyadan fitness-ka kale dadka ma garanaysaa aad ka u jecel ee daawada de cadaanka kale dadka fitness ka sameeya
malaayiin baa daawada marka bulshadoodii baa ah dad ma garanaysa u diyaarsan inay jimicsi sameeyaan inay cuntadooda ilaaliyaan laakiin dadkeena Soomaalida waxa mulanaysa inaanay maba dee keergareeyaanba cuntada cunayo qofku yacni saddexda waqti hadduu helo dee waa alxamdulilah marka waan ka gudbay waxaan sameeyey barnaamijyo dalxiisa barnaamijyadii way kaceen way isbedeleen maasha allah meel fiicanna hadda platformkayga uu marayaa isla waa iskaga socdo laakiin in the end of the day kolley wuu gaadhaya insha allah ilaahay ugu talagalay aniguna waa sii wadaya insha allah waa wadayna noloshoo dhan baa koritaankaasa koritaanka insha allah inuu meel fiican gaadho meel fiican ka gaadho warjeena waxaa jirta inta badan dee bulshadeena uma diyaarsana inay ka faa'iidaystaan qaybta internetka ama uma arkaanba in wax laga samayn karayo marka taasina waxay imika sameynaysaa isbedel inuu qofku xitaa waqtigiisa uga faa'iidaysto meelo badan isagoo shaqaynaya adoo shaqadii ku jira ayaa haddana waxa laga yaabaa inaad waqtigaaga waxyaabo kale nooga faa'iidaysan kartid imika dee qaybtan aad ku jirtid youtube-ka youtubers kaaga horreeyay baa jira marka qofku dee markuu fiilkaa ku jiro waxbuu hiigsadaa ama qof uu hiigsanaya jira marka youtuberska ugu caansan aad ka hesho muuqaalada ay sameeyaan waxaa kamid ah wallahi horta my favorite youtuber Soomaalida ku bilowday my favorite youtuber oo aan anigu aad ugu xidhahay barnaamijyadiisana daawado ahna maanta marka la eego dee youtuberka Soomaali oo dhan ugu caansan adduunka iyo dee dalkaba horta dadka dalka ka yaqaana aad bay u yaryihiin laakiin dee banaanka dibadda caalamku aad bay u daawadaan waa nin Chankis baa la dhahaa Aamin Maxamed baa la dhahaa ninkaas barnaamijyadu sameeya waa incredible يعني وي متفيد قريي شن سنة كهر مركو برنامجي سبلابي ولا سعودي مرحلة ما أنت مال في عم بمريا ما شاء الله هيروحوا مريا ما أنت برايفت تد مقررسا أوقاته سومالي إنه مشتري قف مقررسا سوشيال ميديا كتيري يعني ما أنت هير هالكاسة كجاري العكس سمينا ما شاء الله إله وبركيه بركة آمين محمد شانكس أنا ده اسمي رول موديل ninkaas baa ku dayda Soomaalida kale dad wanaagsan oo fiican sareeyo way jiraan laakiin marka la eego heerka ma garanaysa numberkiisu marayo oo heer aad u sareeyo waxaan ku ma sha Allah ama santahay ka waran waxyaabaha kale ee imka salaan akhriska ama waxyaabaha noocaas soo fiican tahay horta anigu dadka filimaanta daawadaan ahayn qof kasta wuxuu jecel yahay Soomaaliya dadka saxaabta xognan iyo maxad filimka u daawan weydo ma saanda waan dhiyooneeda filim daawan meena filimku muxuu taraya dadka filimaanta iyo daawada ma yihiin wala iga fiican yihiin laakiin xagga akhriska kala maarat oo ku fiicanahay akhriska ku fiican yani alxamdulillah horta quraanka waan akhriyaa waan dhameeyay dadku mooga hata anigu xaafid quraan baan ahay alxamdulillah rabbil caalamiin aaba iyo hooyo u soo baa inaan dee halka quraanka heerka ka gaadho talabaad akhriska kale buugta Soomaaliga yani buugta horumarka iyo waxyaabaha ka sheekeeya aad bay ugu badan yihiin gurigeyga waa iska akhriyaa horta mid aan kugu darsaday horta maxaa marxaatiga inaad xagga cibaadada ku wanaagsan tahay marka halka ka sii wadba kule insha Allah ma iyo cibaadadu shayga ugu muhiimsan horumarkan aad qofku bini'aadanku gaadhaba heer waxa gaarsiya waa Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxana jira de calaaniyatukum turzaqun bu Ilaahay yani niyadaada waxa ku jirta ayuu Ilaahay ku warsaaqaya hadaad wax wanaagsan ku fikrayso Ilaahay wixii uu ku siinaya hadaad wixii jeceshay Ilaahay wixii uu ku siinaya laakiin dadaalna waa loo baahan fadhi waxba kuma meedaadan ay mahmaadi hayd xagla laaban xoolo kuma yimaadaan marka iska fadhigu dan waxa jirta wax la yiraahdo ciyaaraha ka hor الله عيارة أد بون تغيرة إلا تنية عيلفين إلا هالكن ولي عيارة وطاولة تشيلسي بانورت أنو تغيرة تيم كا مركي كوبادي تشامبيونز ليج قاديين 2000 كي مركا عيلفين بانشوغي يعني تيثيجي بان نجح مع هذا اللي درتي شذال كي ملا لقول شو بيشتري مكان سايتشينكا أيا مقالدي كذا عيلفين وعيلفين habeen 12 ciyaarta soo galaysa bal waa kan xagad ka daawatay record baan shidanay gool halkan aan qaylna 130 minute wata lagu daro extra time ciyaartaas extra time bay gaadhay Bayern Munich Chelsea bay exactly deesaan record uga dhigaysanayna qaylinayna baad adigu sidii koobkii Chelsea ku qaaday de habeenkii ma naas anaga asxaabtay dadkii daawanayay ma ahayn habeenkaas dadkii dhigaysanayaan dadna Charles waxa weelanay garoonkii joogaan oo daawadaan laakiin maalmaha ka wada teamka oo soo taageerada fanka kale heesiyo hore mise heesaan tabe keebad isku wanaagsantii
wallaahi bilaahi horta iyo kuwa raabka iyo kuwaas horta wallaahi heesahan dambe ma garanaysaa wax yani micno ay leeyihiinba ma jiro. gurigii baan ka soo baxay, waa booday, gaari baan laad ku dhuftay, waa qof yacni aad soconaysa dee wuu sheekeynaya. waxaas ma wax micnaba ma samey ifan xitaa haddii la dhegeysan lahaa waxay micno samaynaysaa ma jirto. laakiin haddaa dadkii hore oo kale heesahoodii micnay samayn jireen. qofku markuu fanaanku heesayo inantii 100 mithaal buu soo qaaday. hadda daalo heesta daalo oo kale, daalo aragtideeday yacni ninkii qaadi jiray fanaanka يعني wuxuu gabadh buu ku mathalaya daalo quruxdeeda wuxuu oranayaa marka dambe amaan buu raacinay gabadha waa laga guursaday anoniyo wuxuu oranayaa aamina ka doortow deji meel barwaaqa yey ka noqon maryo duug haw yaalo dahabkuna daris aan habooneen yey dareemin qayladii marka wuxuu leeyahay ninkii guursadow yani yaanay dayacmin gabadhaas isagoo dee weliba og in laga guursaday ayuu haddana wuxuu leeyahay yani daris aan habooneen yey dareemin qayladii yani ku daawash yani u dalxiiskii adduunyada meel kastoo loo daawasho tago heestu geera kala lusantahay laakiin eeg micnay abuuraysaa iyo magaranaysaa qofkii inuu magaranaysaa wixii maskaxiyan magaranaysaa qofkii yani dareemo wixii inay yihiin wax la abuuray oo dee khatara oo waxaan ku yidhi maasha allah marka waxaan micno ma sameynaya kuwan dambe hadda kuwii hore aniga kuwii hore qaaraami boy ma jira marka heesoo kale mid gaar oo kale soo dhahay heestaas xasuus gaar ay ku leedahay ama aad baan u xiisin jiray berigan yara iyo imka waday wallaahi fanaaniinta kooda ku jeceshay horta anigu fanaaniinta mid aan jeclahay ma jiro. fanaanan maanta leeyahay waan jeclahay heestaas ka eegtaa waan qof yacni dee aan saaxiib noqono fanaaniba uu yar yahayba anigu hadda hanad baan isla dhaho oo saaxiibkayga baa jira isagu heesaha raabka buu qaadaa inkastoo dee English u badan yihiin English buu ku heesaaba English buu ku heesaaba marka waa saaxiibkay oo dee fanaan kaliya la saaxiibay sidoo kale saaxiibtanaag oo kale waa saaxiib baan nahay fanaaniintan dee saaxiibkana way iska yaryihiinba laakiin heesahooda hees aan odhan karo waan jeclahay maba jirto heesaan jeclahay maba jirto laakiin kuwii hore oo kale anigu hadda haddaan isdhaho something like hees dhegeyso yani mar aan buur saarnaa oo kale oo aan mobil yaroo tegin ama wuxuunaan ka dhegeysanayay ayaa waxaa jira heeso yani berigaa ma garanaysa waaqicii iyo noloshii aan halkaa ku noolaa iyo waxaa ka hadlayay oo hadda markaa xasuusto dib iigeeya halkii oo ah like xasuus baad ku dhegeysataa xasan aadan oo kale heestiisii waxay ahayd heesta 15 anoo daada jira 15 anoo daada jira 15 ayaa markaan dooqa casaqda soo kacmay niyo heestaas way iga lunsantahay taasaa horta heesaha yacni 15 jirkaygii iyo noloshii dambe dib yar xasuusisaa aad iyo xageebad u badan tahay waxaad u badan tahay Instagram-ka ma YouTube-ka xageed u badan tahay inta badan isticmaalkaaga wallaahi horta anigu 3 app baan aad u isticmaalaa oo aan aad u isticmaalaa waxa weeyaan YouTube-ka oo aad platform-ka ugu muhiimsan ee aan wax ku soo gudbiyo waxaan soo shiilo iyo waxaan meelaha ka keenay waxaan soo daraba halkan dhigo waa halkaas oo aan eegaa copyright baan iska ilaaliyaa waxaan iska ilaaliyaa yani waxyaabahan dee waxaa jira waxyaabo magaranaysa YouTube-kan oo gaadis la raaco marka muhiimadda koowaad horta YouTube-kan saaraa sax waa dee waa income dhaqaale oo joogto ah oo lacagta xitaa laga yimaado dee waa meel yani dadka ugu badan maanta igu xidhan ay ku xidhan yihiin Instagram-ka oo kalena waa platform dee dadkii aad communication-ka iyo dadkii aad kala hadlaysid TikTok oo kalena barnaamijyaan dhigaa barnaamijyo yani aan soo jarjaray like yani aan isdhaho dee platformka kale ha kaco inay isla wada kacaan baa fiican moogta waxaagii aanay kala hadhin marka saddexdaasna aad isticmaalaa saddexdaas aad u isticmaasha ma jira application aad isticmaalin waad leedahay weligeeni ma isticmaalin Twitterka weligeyba ma isticmaalin dadku ma ka maqlaa siyaasiyiinta isticmaalaa lagu yiriyo marka kolley waa qoraal un baa la dhigaa Twitterka saan maqlay waan arkaa laakiin video la dhigaa miya dabo adaaba iga waran markaa Twitterka wax alaale faa'iido u leeyahay ma garanayo siyaasi waa loogu talagalay afkaas aad iyo aad